بسم الله إلهنا نوفقه. أوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدينتا قيمها iyo sharafta la soo dhawaada magacay waxa la yiraahaa macallin Cabdi Cabdi Cabdullaahi baa la yiraahaa waxaan la shaqeeyaa school district waalidiin mudan waa isnaqaanaa hadda waxaan u soo wareegay waxaan ka shaqeyn jiray high schoolka hadda waxaan joogaa district office-ka waxaan ahay literacy specialist qofka oo xag waxbarashada iyo waxyaalahaas district-ga la shaqeeyo kala shaqeeyo sidii wax looga bedeli lahaa teeda kale sidii waalidiinta iyo district-ga la isku xiri lahaa iskuulka sifar loo helo ilmaha maaragtay inay u helaan equal opportunity farsamo ama nidaam ay cadaalad oo ay ka wada siman tahay ay waxbarashada ugu helaan taas ayaan ka shaqeynaa insha Allah so literacy strategy-ga ama nidaamka ilmaha lagu caawiyo reerka markuu joogo xaafadda ayaa maanta ka hadlaynaa so ajendaha meesha noo yaalaan ama qodobyaha noo yaalaan waxaa kamid ah reading volume cunuga inuu akhriyo wax badan oo volume ma ka hadlana wuxuu yahay wax weyn waayo buushan oo kale wax badan waayo volume waayo reading widely in wax badan akhriyo oo ballaaran macnaha intuu maanta buug akhriyo magazine akhriyo wax kasta oo ka horma akhriyo wide waa reading wide wax kasta cunuga meel kasta wax kasta uu akhrin karo hal buug ma aha tan kale waxa waa reading aloud kor uu akhrin karo midda kale waxa waayo reading of vocabulary the value of vocabulary harfa cusub oo baran kara vocabulary laha so cunuga ma artiin buushu oo hagaajinaa meeshan yaalaan so distance learning markii la bilaabay oo masaafaha lagu jiro hadda lagu jiro maadaama uu jiro cudurka covid-ka cunuga waqtiga badnaa iyo macalinka iyo ilmihi kale uu la qaadan jiray classka way yaraatay marka waxa laga yaabaa sida awoodeed readingkiisa inuu yaraado ama wax badan uu akhrin marka saasa keentay inaan waalidiinta ku baraarujino ama tababar aan u sameeyno si faa ilmaha oo caawiyaan wax kasta oo macquul oo dhiirigelin kara ilmaha inay akhriyaan oo sameeyaan midda kale waa aragtiin tan waa tii macalinka tan waa tii familiga oo kale waxooda inuu ahaado waa cunug inay jeclaysiiyaan buush oo kale tan laakiin waa rigorous midda macalinka oo kale waa mid nidaam oo la raacayo buugan oo system iyo wax laga rabo waaye tan kale waa iska intensive macalinka waalidka waxa waaye waa connection isku xiris waaye reerka iyo cunuga isku xiro tan laakiin waxa waaye waa nidaam iskuulku u yaalo standard test oo kale ay leeyihiin standard test imtixaanka state-ka oo kale laga rabo macallimiintaas oo kale ka fiirinaya waalidka oo kale waxa la rabaa cunug inuu for fun u akhriyo inuu iska akhriso buugan akhrino magazine-kan akhri ii sheeg wuxuu ku qornay dadkan waxay dhahay inta badan ma naqaan laakiin dhib mal hadaa aqaanin is okay laakiin cunuga inaad dhiirigelin kartaa muhiim ah taas loo baahan yahay developmentary progressive wax dhismaayo waa cunuga oo macalinkiisa oo kale tan kale waa supporting waa caawinaysaa midda oo waalidka waa caawis iyo instruction iyo sanyeel iyo buugan akhri iyo kale ii sheeg waxyaalahaas waaye productive struggle macalinka oo kale struggle ha sameeyo let him fail hadduu dhaco dhib male cunuga so we learn through errors ha dhaco no problem waan ka sixi karnaa marka dhow laakiin asaas isku dayo iskuulka oo kale doesn't feel like home cid oo kale maha way ka duwan tahay structure iskuulka so family together reerka oo kale isku imaanayaan iyo cunugii iyo wixii isla akhriyaan ama walaal hala akhriyo ama hooyo la akhriso ama abaha la akhriyo very important so tan kale aan ka hadlayno waxa waa reading volume-ki waa hadda loo galay reading volume-ka the number of minutes daqiiqadaha cunug uu akhriyo maalin kasta akhriyo waa la isku darayaa so bishii meeqay noqonayaan sanadkii meeqay noqonayaan daqiiqadahaas la xisaabaya waxaas la dhahaa volume total amount of reading so readingka macni muhiimkiisa maxaa waaye readingka muhiimkiisa waxa waaye general knowledge buu ka dhisaa cunuga cilmigiisii iyo dhisayaa reading proficiency uu ka dhisayaa tan kale waxa waaye independently cunug uu akhriyo oo kaliya gooni uu akhriyo wuxuu helayaa greater array of knowledge cilmi badan uu helayaa iyo xarfo badan oo vocabulary uu badanaya iyo ku baran kara buuga asaga markuu akhriyo cunuga wuxuu helayaa rare words xarfo badan oo inta badan aan lagu akhrin iskuulka ayuu ka baran karaa marka xarfahaas waxaa la dhahaa rare words xarfahaas waa wadana ku isticmaali karaa bismillah iyo iskuulka hadana ku isticmaali karaa iyo waxyaalaha kale so example of rare words waxaa kamid the word cell oo kale waa cell waa science-ka lagu bartaa so students who read extra outside school perform better in standard test cunuga waxaa la rabaa muhiim cidda markuu joogo maalin kasta inuu atlas akhriyo 15 minutes 10 minutes waxaan adigu qoonte on 20 minutes 30 minutes is okay hadduu awoodo laakiin intan kale 15 iyo 20 waxa waaye uu sameyn karaa saga uu keeli karo wax yar waay so magazine-ka inuu akhrin karo cunuga newspaper tuu arka akhriyo sports waxay ka helaan jokes ciyaaraha buuga comics waxyaalaha isku fiction buugasha noocaas oo kale wax kastoo meel ku qoran inuu akhrin karo la rabo cunuga taasaa muhiim so wax qasab maaha wax cadadan iyo buug noocaas inuu akhriyo qasab maaha wuxuu asaga ka helana muhiim ilmaha maxaa jecesha inaad dhahdo ka support galaysa interests kuwa qaar sports ay jecel yihiin kuwa qaar waxay jecel yihiin ciyaar inay sameeyaan
kuwa qaar waxay jecel comics ama wax la jiro so adi waxaas kulli akhrisaa la rabaa muhiim taasaa muhiim ah so tan kale waxa waaye discussion questions su'aalaha noo yaala maanta waxa waaye reading akhriska uu soo yaraanaya 2016 dadkii hore wax badan ay akhrin jireen dadka maanta joogo technology-ga wuxuu batay iyo digitalka iyo waxyaalihi baa bartay iyo computerka iyo telefoonka baa batay marka akhriska aad u yaraanaya waa research la qaado wuxuu tusinayaa 2016 sanadka 2016 boqolkiiba 16 ruux ayaa for fun akhrisay for fun macnaha kahelis waxay ka helaan akhriyeen 1976 sanadka markuu ahaa 76 1967 sorry waxaa akhrisay boqolkiiba 67 waa artay marka boqolkiiba waxaa akhrisay 60 marka hoose u socota waa arkaysiin marka meeshan waxaa waaye percentage-ka iyo daqiiqadaha iyo inta buu akhrin kara cunuga iyo sanadka inta isku noqon karaan ayaa reading volume-kii aan ka hadlaynay iyo xiriir ka dhaxeeyo cunuga hadduu akhriyo iyo achievementkiisa muxuu keeni karaa so waa artay meesha 98 percentile buu cunuga 65 daqiiqo akhriya 19 kale so sanadkii wuxuu helay 4,733,000 oo xarfood buu akhriyay kii akhriya 9 waa arkaysiin 9 oo keenay kii 21 akhriyay so daqiiqadaha way sii yaraanayaan damo ay sii yaraadaan cunuga iskoolkiisa uu sii yaraanaya intuu keeno haddii daqiiqadaha yaraadaan intuu keeno way yaraanaysaa daqiiqadaha hadday bataan intuu keenaa badanaysaa so waa arki kartiin graafkan waa fiirin kartiin I mean tablekan waa fiirin kartiin taasaan ka baxay insha Allah so why is reading important reading maxay muhiim ku tahay teachers are focusing on life of teaching it may be challenging for teachers to assign reading because students aren't reading in front of them so hadda maadaama digital lagu jiro oo wixii online iska yahay macalinka inuu cunuga buuga akhri dhin baa laga yaabaa because islama joogaan so yaa la joogaa waalidkaa la joogaa so during distance learning child cunugaada iyo experiencekiisa bal ka warrama iyo readingkiisa suu ahaa markii lagu jiro online wax badan may akhriyaan ma wax yar bay akhriyaan ma soo xaama akhriyaanbo so taa waa discussion questions iniga iyo waxaa soo gudbisiin ayaan u baahannahay qasab ma aha nin walba iyo wixii fikirkiisa iyo wuxuu cunugiisa kala kulmaa noo sheego insha Allah wixii aad ka bedeli kartaan insha Allah ka bedel so in normal elementary classroom students read every day markii elementary lagu jiro maalin kasta cunug wax uu akhrin jiray cunug waqti baa jira maalinka uu qoondayn jiro ilmaha ay buug akhrin jireen so students are usually given time waqti baa la siiyaa each day to read a book of their choice for pleasure so book iyaga ay ka helaan oo choice-ka oo ay soo doorteen oo for pleasure ay u akhrinayaan ayuu maalinka dhageysan jiray marka akhriyaan kadib badan imtixaan buu kaga qaadi jiray so a daily habit of reading widely will move your child forward so marka hadduu cunuga maalin kasta habit ama dabeecaddu u leeyahay inuu akhriyo 20 minutes 10 minutes 15 minutes taasaa cunugaad hor wadi kartaa so encourage your child to read daily u sheeg cunuga maalin kasta ama ku dhiirigeli maalin kasta inuu akhriyo at least wax yar ha ahaato wax badan ha ahaato it's okay hataa 10 minutes waa fine 10 minutes minimum waa muhiim waay 15 minutes kasi fiican 20 kasi fiican good to go so let them read every day what they are interested with your approval lakin waxay akhrina adiga fiiri waxyaalo xun inuu ahaanin waayo atra oo buugan sawiriisa ma jeclaan iska dhig waxyaalahaas ku sawiran wax fiican iyo akhri iyo sheeg asla fiirino okay good isla ogaada so with the approval xaway adi marka aad dhaxda way sax ka soco reading-gana yaa laga dhigay shaqo cunuga lagu punish gareyn haddii lagu punish gareeyo uu nacaya ilmaha waa aragtay haddii wax la dhaho qasab waayo ma akhrinaan faray ka qaadaya so cunuga interestiisa ahaato so action steps asameyn karta maxaa adi talk with your teacher macalinkaada kala hadal ama librarian kala hadal buuga u baahna cunuga levelkiisa inaa isiiso ama ii doorto waa ii sheeg kee u soo gadaa kee u raadiyaa kee iskuulka ii hayaa weydii insha Allah haddii kale library aad tagi kartaa qofka librarianka weydin kartaa muddada kale cunuga weydii maxaa ka heshaa hooyo maxay ka helaan weydii buug noocmaan ku soo gadaa inteen ku geeyaa library character-ga buugga maxaa waaye buugga markuu akhrinayo inuu ku sheegaa fiican buugga muxuu ka hadlayaa character waa qofka oo buugga uu ka hadlaya ama tooray dhahan movie oo kale laakiin buugga waxaa la dhahaa characters ma xoolaa ma dadba maxay ka hadlayaan waxaa kaga sheego at least buug intee laga qoro setting intuu ahaa magaaladuu ahaa qofka qoro intuu joogaa weydii la sheekayso so know your reading resource-ka ama meesha wax ka soo qaadan karta inaad ogaataa fiican see the next slide digital resource-ka meesha heli karto slide kalaan ku arkayna insha Allah ay soo socdo so ask your child what they are reading for school waxay school ku akhriyaan schoolka weydii school maxaa ku barateen maanta what are they learning what books they are reading buushay akhriyaan
iska weydi maxaa nagu adkaa maxaa fududaa ma ka heshay su'aalahaas cunuga way dhiirigelinayaan hadaa weydiiso read with your children cunugaada la akhri reading together create a shared experience and follow time for bonding so haddii cunuga la socoto wuxuu ogaa inaad dhiirigelinayso teeda kale shared experience wax badan oo khibradaha kala wadaagi kartiin waa isku xirnaan kartiin shared bonding cunuga wuxuu dhigi karaa adii hadaa ha qaladataa dhib mala saa kaa sixi sometimes have fun iska cunuga ha qoslo joyful ha ahaado laakiin waraa u intaa u qaat meesha firiso wariya buuga ka soo baxda dhahdo cunuga wuxuu akhrinay wax kale ma kala saab so model reading and talk about your reading in front of your child so you can read everything wax kasta akhrin kartiin anything newspaper ha ahaato journal ka ahaado iska magazine ha ahaado so laakiin muhiimka ay leedahay waxbarashada ama akhriska la akhrinayo maalin kasta cunugaana kala hadal insha Allah so meeshan waxa ku yaala waxyaalaha noocdeel waxa waaye ma garatay waxyaalaha aan leenahay aan isleenahay biography ama tii hadda aan ka hadlayna tan oo kale waxa waaye reading all waa meel oo maartay aad heli karto akhriska ama resource of free aad heli karto tan kale waxa la unite for literacy tan oo kale waa tii kartaa oo ku dhufan kartaa wax badan aad heli kartaa storyline online oo geli kartaa waxyaalahan kulli linkan kulli waa save garaysan kartaa kuwa qaar hataa af Soomaaliya qabaan af Soomaaliya heli kartaa hataa oo buugal af Soomaaliya lagu akhrina heli kartaa so inaad click garayso isku day tan oo kale waa 15 languages bay ku baxaan so very important waa inaad resources kan aniga nisoo diyaarinay tan waxa waa international children for digital learning tan waa Beqam library waxyaalahan kulli NPR wow in the wall so waxyaalahan kulli wadamo kasta waa heli kartaa hataa darabto so reading hataa asagoo luqado badan ku qoran jira hataa so waa very important resource in isticmaasho cunugaada u isticmaal book maysti iyo meel wax laga raadi ma helay excuse ma noqonayso maanta wax walba online book hadaa google garayso book waa ku soo baxaya so wax walba youtube waa heli kartaa resources ka aan siin cunuga ka baran karaa buugala u soo gadi kartaa haddii iskuulka laga soo siiyo kuwaas oo akhrin karaa so excuse ma jiro oo wax lagu akhriyay maanta insha Allah so midda kale reading widely maxaa la dhahaa cunuga inuu akhriyo different genre helps children build knowledge waxyaala kala duwan varieties kala nooc hadduu akhriyo cunuga buugashan waa artaan tagan guduud blue yellow waxa kale hadduu akhriyo cunuga u dhismaa tiara waxay ahayd volume wax ballaaran iyo daqiiqado badan tan waxaa waaye wide wax badan inuu akhriyo buugal kala nooc mid inuu akhrin karo biography mid ka sheekaynaya taariikh iyo qof iyo dhalashadiisa tan kale waa graphic iyo novels midan kale waxa waaye characters waxa xoolo ama dad ama qof weyn qof yar qof madax soo ahaan jiray mid kuwa qaar science ay ka hadlaan caafimaadka ka hadlayaan iyo culumta midan kale waxa waaye comparing editorial waxyaalo isu compare garayni ay ka hadli karaan kuwa qaar waa information akhbaar bay ku siin karaan news warbixin technical waxyaalahaas kulli waa kala duwanaashada iyo genre la sheegayo waay tan kale waa lyrics waxa la dhahaa poetry oo kale gabayga oo kale song ama heesaha poetry waxyaalahan kulli waxa waaye cunuga inuu miduu rabo inuu akhrin karo tan kale waa folktales sheekooyinka xiriirka aan u sheegi jirnay bariga yarayaan legend xawataako maxaa la dhahaa isheeg ruwa iyo duwacay wixii laga sheekeyn jiray kuwaas oo kale la dhahaa legend iyo waxyaalahaas so sheekooyinka anaga aad aan u haynaa xagga Soomaalida marka loo iyo dhaqan ahaan so ilmaha folktales iyo in loo sheekeeyo waxyaalaha iska fiican tahay iyo taariikh ahaan iyo bari waxa jiri iyo waxyaalahaas iyo ruwa iyo duwacay Ali Usman dil ma aragtay waxyaalaha kulli barigaan yareyn aan soo marnay waxaas in loo sheekeeyo iska fiican tahay so waxa uu ku dhismaa cunuga so the value of reading wide waxa kamid ah build imagination cunuga fikirkiisa dhismaya social emotionkiisa dhismaysa experience challenges at distance and see challenge ki wixii iyo distance and see how characters fail wixii characters ama qofku uu ku fail gareey buu ogaan karaa waxyaalo badan oo problem uu ku xalin karaa intuu wax akhriyo cunuga so imagine how they could handle difficult situation waxa uu ku adkaado say u xalin lahayn research shows that reading narratives can elevate loneliness hadduu cunuga akhriyo cilmibaarid waxay tusduu akhriyo lonely ma ahanayo cunuga oo kaliya cidlo ma noqon karo reading for pleasure and enjoyment cunuga inuu akhriyo for pleasure waxa la dhahaa waxa ka heshay inuu akhriyo supplies children with knowledge about events waxyaalo u sheegi kara cilmi u kordhin karaan abstract concept
you know wax dhace inuu u sheegi karaa hal bill interest cunuga interestiisa iyo wuxuu rabo dhisi karaa become aspirational waxay u aan karaan waxa oo maartay aspiration waxa la wax oo adigu soo kiciya ku dayan karto real life reading adults read a great non-fiction booshu akhrinayo inay ka caawin karaan background information stronger comprehension ka saacadaan kara comprehension waxa la wax badan marka la akhriyo paragraph iyo sentence ma book page marka la akhriyo oo comprehension waxa la dhahaa so qaybta kale hadda ungudeen discussion questions do your children read widely across genre or do they stick to a series of genre unugaada hal buu akhriyaa mise waxyaalo badan uu akhriyaa taas waa iska su'aal ka jawaabi kartiin the value of reading aloud qaybta kale waxa waaye unuga hadduu kor u akhriyo maxaa faa'iido ah waan sheegnay hadduu wax badan akhriyo faa'iido waan garanay hadduu wax kala duwan buugal kala duwan u akhriyo faa'iido waan garanay hadduu kor u akhriyo faa'iido maxaa waaye reading aloud can serve to build your child's knowledge and develop their social emotion waxay ka dhisi kartaa knowledge ka dhisi kartaa social emotion ka dareemihiisa iyo dabeecadiisana way dhisi kartaa okay academic benefits faa'iidada xagga academic maxaa waaye vocabulary badan buu baran karaa cunuga comprehension buu comprehension ka dhisi kartaa inuu wax badan akhriyo comprehension ka buuga achievement ka testkiisa imtixaankiisa kor u kici karaa stories sheekooyin bay ka baran karaan exposure to text readers may undertake on their own keligooda wax samaysan karaan you know text wixii akhrin karaan require practice practice-ka iyo instruction-ka distance learning may not be getting enough practice so cunug waxa leeyahay distance learning ku jira practice ba inuu helin so adi ina because macallin ma joogo so wixii kulli macallinka ku hadlayna cunuga ina hadda la raba social emotion taa xagga academic ay ka caawin kartaa waan sheegnay so social iyo emotion-ka xagga dareemaha maxay ka caawin kartaa young children develop self reflection skills like sitting quietly and exercising patience when someone is talking to them so waxay ka dhisi kartaa cunuga self regulation inuu lahaado inuu kaliya meel fariisan karo wax inuu dhageysan karo ilmaha hadda waa artay way ku adag tahay ilmahan inay wax dhageystaan oo la hadlayso taa waxa uu sheegay ma garan karo so patient dulqaad inuu yeesho waxyaalaha buuga iyo dadka iyo kaartaas ku yaala ayuu ka baran karaa cunuga patient dulqaad inuu yeesho wax markuu ku dhaco teens will also benefit from shared experiences waxay ka heli karaan experience-ka oo qofka buuga la akhrinayo waxyaalaha uu ku dhacaan waxyaalahaas ina experience uu ka heli karaa bonding close relationship inuu iyo reerkiisa inuu jeclaan karo iyo bondingka iyo relationshipka inuu xiriirka uu ka baran karo tuu akhriyo buusha noocaas so tips incorporate waxyaalaha ka samayn karta adiga waxa kamid ah marka tips incorporate read aloud with children into your daily activity kor isku akhriya you know integrate habit ha noqoto dabeecad ha noqoto markii after lunch ha noqoto before bedtime marka intaan seexan ha noqoto you know popular time to read you know habeenka ka musal soo galaa kala sheekooyina oo sheekay kartaa buug oo akhrin karaa so waxyaalaha akhrin ha kala duwanaado you know cunugu wuxuu akhrinayaa maanta dubu akhriyo ku noqon biri kala akhriyo you know varieties-ka iyo kala duwanaashada oo loo baahan yahay ideas badan ka imaanayaan so share your personality sharing enthusiasm with children inaad dareemayso ama enthusiasm waxa la dhahaa cunuga dhiirigelinta camal iyo enthusiasm inaad ka dhisi karto can help you excited about text funny voices codadka oo funny inaad bedeli karto sound effect gestures gacmaha iyo jirka movement inaad isticmaasho ask questions su'aalo weydii ka weydii plot characters maxaa ku jira buugga wuxuu ka hadlayaa plotka settingkiisa waxa kulli weydii meesha lagu qoray you know ka dhis kara preview the text beforehand so you know what is coming so text si ogo waxay iman kartaa waa gestures slow fast pace so nidaamyaha buugga loo akhriyo waxaas allow your child to take turns so turns la qaata children in grade 3 can read at their sibling so ilmaha yararka siblingkooda la akhriyaan kuwa grade 3 gaareen kuwa ka yar ama kuwa la akhrin karaan especially children who are still learning alphabets so cunuga haduu grade 3 u yahay kan kale u yahay nursery ama class 1 uu akhrin karaa so qaybta kalena waxa waayo value of vocabulary value ay leedahay xarfaha cusuban ama vocabulary maxaa waaye memorizing word list is not very useful so ina xifdiso muhiim si aha playing vocabulary game can be very helpful vocabulary game ina ku sameyn karto ku ciyaari karto xarfaha astaa marin karto oo kale markay ilmaha bartaan ku ciyaari karaan game okay 5 steps of knowing vocabulary waxa kamid ah sida aad ku baran karto xarfaha cusub waxa waaye define the word kina inuu define garan karo waxay uu sheegi karo
word that was inuu sheegi karo xaraf dan ku dhahdo kale stand maxaa stand stag waa sama inuu sheegi karo so use it correctly sida loogu talagalay inuu ku isticmaali karo markii buug la yiraahdo stand please stand up oo kale dan ku dhahdo ereyga baan ku isticmaalay waxaan ku yiri fadlan stag waa fahamtay so laakiin haddaan stand ku tagnaa ma fahmayso waxaan ka wado so multiple meaning of words xarafta waxa laga yaabaa inay macno badan leedahay xarfooyinka baraha badan macnooyinka faraha badan inuu garanayo la rabaa use the word with accuracy and precision wordka u isticmaal sida saxda ah use word in conversation hadalka ku isticmaal inuu ku isticmaali karo iyo qoraalka in writing xarafta u isticmaala writing inuu gelin karo eryan conversation wala hadal inuu isticmaali karo ama xiwaar ay waqana Soomaali so importance of vocabulary waxa muhiimkeeda waxa waaye word languages and the association meaning xarafti iyo luqadda si loo isticmaalo ku baran kartaa so cunuga qofka hadii oo maalin kasta uu akhriyo oo every time new word uu helo so intuu si weynaanayo vocabulary-giisa way kordhayaan xarfaha cusuban way kordhayaan because maalin kasta uu akhrinayo soma so a person vocabulary evolve across their lifetime a child vocabulary is solid so predicator of reading comprehension so markuu vocabulary kordho comprehension-giisa iyo wixiisa iyo achievement inta intuu keenaya ayaa sii badanaya vocabulary represent web knowledge web waxa la dhahaa halkan carado kale so way arrinta isku xiran tahay waadiyahan saas oo kale waaye it's more likely new ideas will stick to for this reason it's important for the child to continue reading and expand their vocabulary so waxa loo baahan yahay cunug markasta inuu akhriyo oo vocabulary-giisana markasta ay sii kordho so recommended vocabulary games waxyaalaha muhiimka oo anaga dadka lagula talinayo oo recommended ka waxa kamid ah playboard inuu cunuga uu lahan karo lagu ciyaari karo scrabble gameyaha la ciyaaro waay way aqaanaan kalaasyaha baladash upward doubles waxaan kulli waa game iskuulka lagu isticmaalo iyaga weydiin karta insha Allah anagrams letter tiles long words xarfaha gamehan kulli iyaga weydiin insha Allah way sheegayaan iskuulada lagu isticmaalaa guess the covered word xarfaha la qarinayo oo kale write the word your child is listening a piece of paper use another piece of paper to cover the word so wordka cover garaynaysa wordkii uu sheegaya ka qarinaysa the category of word so weydiinaysa xarfahan category kuwa f oo kale kuwa b oo kale isku group waay so xarafta intay galaysaa oo kale inaa weydiiso iyadana muhiim waay waa guess garaynaysa iska adinaysa amal uu sheegaya inta ka qariso so 20 questions declare category animals oo kale ba loo kala bixin karaa vegetable qudaar oo kale minerals dahab iyo waxyaalan so waxyaalahaas kulli waa very important xarfaha inuu cunuga categorize garayn karo macnaha kooxday galayaan kooxda animals ka galayaan kooxda dhirtay galayaan you know which category dadkay galayaan you know waxaas kulli waa muhiim iyagana vocabulary words your child is learning at school contact your teacher if needed hadii wax su'aal la qabto macalinka la xiriir kartaa be sure to turn your child with your child so they can be the one with the word so turns qaata isla akhriya marba ruux akhriyo okay good take away home take away waxa la dhahaa waxaan ka qaadan karnaa reading requires practice waa ina waatiin wax akhriska wuxuu u baahan yahay practice fara badan not just instruction saan samee ma laakiin practice encourage your child to read every day cunugaada ku dhiirigeli maalin kasta inuu akhriyo buuga magazine waxyaalaha inuu akhriyo encourage your child to read wide cunugaada kula talay inuu wax badan oo kala nooc inuu akhriyo inuu kor u akhrin karo saan ku dhiirigeli digital literacy ga resource aan ku siina meesha day aan soo marayna ina isticmaasho isku day insha Allah vocabulary games ka inuu isticmaalo iyagana to expand for so vocabulary giisa read books hadu adag in lagu noqdo this is a great way to develop fluency book hadu adag cunuga saddex koor laba jeer akhrin kara si fluency giisa iyo fasiixiisa uu dhimo fasiixnimada uu iswato so resources ka waa kuwan dadka qoro waa dadkan waa aragtiin so thank you for attending waad ku mahadsantihiin saamaanta nagu imaateen oo soo qayb gasheen kulankan iyo trainingkan aad baan ugu mahad celinaynaa waxaa soo socdaa sessionka talaadada oo January 26 6 to 7 taa waad ka diiwaan gelin kartaa waxa la dhahaa social and emotional well-being at home sidii ilmaha dareemahoodii iyo stability-gooda inay qudaganaashadoodii iyo waxooda loo baro taas waxa ka hadli doona social worker-ka Michelle Kuhn iyo Kim Berry waa qolada iskuulaha joogan iskuulkan Roseville iyo kan kale kuwaas ka hadli doonaan if you are one of the first start to register hadii soddonku hore is diiwaan geliyaan
email baan soo dirayna insha Allah oo price aan ku bixinayna price oo ilmaha iyo waxyaalahaas la siin doono marka aad baan ni salaame soo dhawaada kulligiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته